kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka shanta galabnimo oo si toos ah kaga imaanaya studio labaad oo TV ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada warka shanta galabnimo ugu door korona waxaa kamid ah wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Ayaan ayaa waxa uu ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Puntland. Ra'iisul ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar ayaa waxa uu magaalada Muqdisho kaga qayb galay munaasabadda maalinta badda adduunka. wasiirka difaaca ee Soomaaliya iyo safiirka dawladda Ingiriiska ayaa si wada jir ah waxay xarig ugu jireen xero ciidan oo lagu tababarayo ciidamada Soomaaliya. shirkadda cumrada iyo xajka ee Carafaad oo maanta dib ugu soo celisay magaalada Garowe shacab ee sanadkan u fududeysay inay soo cumreystaan. daawadayaal qodobadaas aad daawateen waxa ay kuwada ugu door koreen warkeena shanta galabnimo. haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan.